abbaarakoy 10kii barqinimo ee maanta waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan qaybta VIP-da ka soo degtay diyaaradda siday meydka marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirkii wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya kaasoo maalintii Jimcihii ahayd ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. meydka marxuumka waxaa la socday xubno ka tirsan dowladda uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre, hanti dhooraha guud ee qaranka iyo ehelada marxuumka. meydka marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa lagula tukaday salaadii janaasada gudaha garoonka diyaaradaha waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, inta badan xubnaha golaha wasiiradiisa, xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka oo ugu horeeyeen gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi Mahad Cabdulla Cawad, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sharaxaya dhaqamadii wanaagsanaa ee lagu yaqaanay marxuumka. qofkiin hadduu shaqeeyo shaqada inuu hagaajiyo ayaa uu itqaaniyo oo si fiican meel uga gaaro ayuu jecel yahay buu yiri. marka Cabdiraxmaan in shaqa howlkar ayuu ahaa, annaga culimada wax badan aan la shirnay, mar walba wuxuu dhihi jiray wax kasta diinta ka hor imaanaya nagu baraarujiya dastuurkan aan ka saxno. marka shaqadiisa aad buu u yaqiinay, aqoon waa u lahay, howlkarna waa u ahaa. arrintaasna arrin diinta ku weyn waaye, waana insha Allah arrinta u shafeeci doonta haddii la yiraahdo. wuxuu kaloo Cabdiraxmaan macruuf ku ahaa jacaylka dawladnimada, nin dawladnimada jecel oo weligiis nidaam dawladeed taageer ayuu ahaa, waana midda laga doonayo qof kastaba. Cabdiraxmaan oo oleynayo weligiis ama inuu wax dumiyo ama inuu wax dhaleeceeyo ama inuu wax ka hor yimaado lama arkin, raxmatullaahi calayhi. arrintaas ilaa waagii carta ayaan isnaqayn Dr. Cumar Dhegey iyo raggii la soo shaqeeyayna waa joogaan, iyo nimankii North America iyo meel walba Yurub iyo meel walba kala shaqeynayay, iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo rag badan oo saaxiibadiisa. xogihii aan ka helna waxay noo wada sheegeen inuu ahaa rajulu dawla marka arrintaasna waa arrin ku dayasho mudan oo qof kasta Soomaaliya la doonayo inuu Cabdiraxmaan ku xasuusto, asaguna uu qudwo wanaagsan ka dhigto. maxay ku xasuusan doonaan shacabka Soomaaliyeed iyo golihii fulinta oo isagu xubin ka ahaa? waxaa ka hadlaya Xasan Cali Kheyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Cabdiraxmaan wuxuu aniga ka mid ahaa wasiiradeyda ila shaqeeya. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxa aan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu bedelo. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda Soomaaliyeed sarreynteeda laga shaqeeyo. Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa. dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisii la dhammaystiro. isagaa ahaa aabbihii shaqadaas hayay. dadka Soomaaliyeed inay isugu ka mid ahaadaan, Cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa. musuqmaasuqa in laga fogaado, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa aasaas u ahaa. marka ay khatari timaado oo dadka qaar ay caadifadoodu shaqayso, Cabdiraxmaan baa maskaxdiisu shaqayn jirtay, Allah u naxariistay, oo dhihi jiray waa in shuruucda dalka iyo dastuurka la ilaaliyaa. wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Fawziya Abikar Nuur iyo gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada gol ee baarlamaanka xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa si wada jir u sheegay in kaalin wanaagsan uu ka soo qaatay hanaankii dib u eegista dastuurka dalka oo soo bilowday 2012kii isagoo loo mar soo qabtay xilka wasiirka dastuurka Soomaaliya. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay geerida ku timid degdegta ah walaalkeen wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii firdawsi ka waraabiyo. eheladii, saaxiibadii iyo qaraabadii kulligiiskii uu ka baxayna ilaahay sabir iyo iimaan u naga wada siiyo. wasiir Xoosh wuxuu ahaa nin daacad ah, aad iyo aad yacni ugu roon dhalinyarada iyo dadka la shaqeeya. wuxuu ahaa nin aad u xishood badan, shaqada aad iyo aad ugu weyn tahay, xilkas ah, aad u afgaaban, u gargaara ummadda. wuxuu aad iyo aad ugu soo shaqeeyo lagu xusuusan doonaa dastuurka. waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro dhammaan
shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadda eheladii uu ka geeriyooday qoyskii iyo saaxiibadii intaba iyo hay'adaha qaabilsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha dastuurka dib u eegidda dastuurka u qaabilsan dhammaan tacsiyan halkan uga diraya waxaan leenahay Allah u naxariisto walaalkeen waa dhintay shalay wuu noolaa maanta ayuu maartay saacado ka hor buu dhintay waxa weeye annaguna bahda dib u eegidda dastuurkana waxay tabi doonaan runtii kaalin muhiim ah ku lahaa samaynta iyo dib u eegidda dastuurka intaba marka waa iskaga tacsiyeenaynaa guud ahaan waxaan leenahay asagana naxariistii janna Allah siiyo muxuu ahayday waana la dhimanayaa oo qof walibana waa dhimanayaa waa qof maaragtay la daynaya ma jiro qabuuro ku yaala isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaana lagu aasay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirkii wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya.